dawada ku soo dhawaada barnaamijaan ku falanqeyn doono dilkii loo geystay jarnaalkii u dhashay dalka Iran Soleimani kaasoo xalay gantaal ay ku dhufatay dowladda Mareykanka xilli uu marayay meel asaas uga fogeyn garoonka diyaaradaha ee magaalada Baghdad. ilaa hadda waxa dilkiisa cambaariyay wasaaraha dalka Iraq Abdul Mahdi waxa uu cambaariyay dilkii loo geystay General Qasim Soleimani oo Mareykanku u adeegsaday duqeyn dhanka cirka. General Soleimani oo ahaan madaxa cutub ka mid ah ciidamada ilaalada kacaanka ee dalka Iran oo yaana loo magacaaba Qudus. waxa uu wasaaruhu sheegay in warkaas duqeyntu ah mid u horseedi kara dagaal halis ah oo ka dhaca Iraq sida warbaahinta dalka Iraq ay bogoreesaaka ay ku soo qoreen. sidoo kalena safaaradda Mareykanka ay ku leedahay gudaha dalkaasi Iraq gaar ahaan caasimadda Baghdad ayaa dhanka Twitterka waxa ay sheegtay in amniga safaaraddu aad loo adkeeyay isla markaasna loo baahan yahay beetri ilaalada guud ee safaaraddu inay feejignaan muujiyaan guud ahaanba beetri inta ay socoto xiisadani. ilaa hadda sidoo kale waxaa arrintaasi cambaariyay senator ka mid ah gudaha dalka Mareykanka Ilhan Cumar ayaana ka hadashay waxa ayna boggeeda Twitterka ku sheegtay in amarka uu lagu dilay sarkaalkaas uu bixiyay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump. waxa ayna sidoo kale ay sheegtay in loo baahan yahay in arrintan su'aalo laga weydiiyo madaxweynaha Mareykanka ee ku aadan qaabkii uu u qaatay go'aanka ahaa in lagu kharijiyo sarkaalkaasi iyo waliba sidoo kale waxa ku kalifay inuu go'aamo noocaas oo kala qabto. waxa ayna sheegtay in loo baahan yahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo hadda uu muddo yar uga harsan tahay xilli mudadka madaxweynenimada ee dalkaas Mareykanka in looga baahan yahay inuu shaabo dhowrad oo ku aadan taasi uu ka jawaabo. wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaana sheegtay in Qasim Soleimani ay dileen duqeyn dhanka cirka oo ka dhacday meel aan ka fogeyn beetri garoonka diyaaradaha ee Baghdad ee dalka Iraq. dowladda telefishinka dowladda Iraq ayaana sidoo kale baahiyay in General Soleimani oo ka mid ahaa dhowr qof oo lagu dilay duqeynta dhanka cirka ahayd waxaana xilliga gantaalka lagu dhufanayay la sheegay inay la socdeen saraakiil kale oo iyagana ka tirsan isla gudaha dalkaasi Iran ka soo jeeda. wararkii ugu dambeeyay oo la xiriira dilkii sarkaalkaas ayaana ku jirnaaye waxaa sidoo kale ka hadlay sarkaal kale oo isagana u dhashay dalkaasi Iran isagoo sheegay in ay ka jawaabi doonaan dilkii loo geystay sarkaalkaas isla markaasna oo Mareykanka iyo waliba Israa'iil ay jawaab adag siin doonaan. Shiinaha oo ah isagana dal kale ayaa waxa uu sheegay in looga baahan yahay in Mareykanka uu dejiyo xaaladda bariga dhexe waxa uuna ka dalbaday dhammaan dhinacyada gaar ahaan Mareykanka inay wax iskula haraan kadib dilkii General Soleimani. Shiinaha wuxuu markasta ka soo horjeedaa in xoog loo adeegsado xiriirka caalamiga ayaa lagu yiri war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha waxayna ka dalbadeen Mareykanka inay deganaansho muujiyaan oo aysan uga sii darin xaaladda murugsan ee gobolka. Shiinaha wuxuu ka mid yahay dalalka xubnaha ka joogtada ku leh golaha ammaanka ee qaramada midoobay waana mid ka mid ah dalalka sida weyn ugu tiirsan dhoofka saliidda ee Iran oo inta badan oo ka soo dhoofsadaan saliidooda. waxaana la aaminsan yahay in Shiinaha uu warmurtiyeedkan u soo saaray la xiriirto taageeradu u hayo dalkaas Iran iyo waliba sidoo kale ka dhoofsashada saliidda uu ka soo dhoofsado dalkaasi Iran oo iyadana cunaqabateen dhanka dhoofsashada saliidda ay saaran tahay. sidoo kalena afayeenka ururka isbedel doonka islaamka ee Iran oo loo soo gaabiyo ARGC oo uu hogaamiyay General Ramin Sharif ayaa sheegay Mareykanka iyo Israa'iil ay heli doonaan jawaab kul. waxa uu yiri maanta Mareykanka iyo Israa'iil waxay galeen dambi weyn waxayna heli doonaan jawaab kul ayuu saakay telefishinka gudaha ee dalkaas Iran u sheegay. wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaana sheegtay in Qasim Soleimani ay ku dileen duqeyn dhanka cirka ah oo ka dhacday meel aan ka fogeyn garoonka diyaaradaha ee caasimadda dalkaasi Iraq ee Baghdad. waxaana sidoo kale Iran isla xilkii uu hayay jarnaalkaas u magacaawday nin kale oo lagu magacaabo Ismaaciil Qaani ayaa waxaa loo magacaabay taliyaha cusub ee cutub ka mid ah ciidamada ilaalada kacaanka ee dalka Iran oo lagu magacaabo Qudus sida la sheegay wakaaladda wararka ee Fars. Qaani ayaa ahaa jarnaalkii ku xigay Soleimani oo duqeyn dhanka cirka ah isaga lagu dilay habeennimadii xalay ahayd. xogaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa isagana saaka xiray dhanka telefoonka uu la sameeyay xogaha arrimaha dibadda ee Ingiriiska Dominic Raab iyo waliba dhigiisa kale ee Jermaine Hagemas. labada kiisba waxaa la sheegay in Mr. Pompeo uu cadeeyay in Mareykanka ay go'an tahay in xiisadda la dejiyo
waxa uu sidoo kale bayaan uu horey usoo saaray uga mahadceliyey master Gibb iyo weliba ninkaasi kale sidii ay uga jawaabeen arrintii ku aadanayd duqeynta dhanka cirka ay sameysay dowladda Mareykanka kuna toogatay sarkaalkaasi. ilaa hadda waxaa kasoo dhalanaya arrintaasi su-aalooyin kala duwan isla markaasna looga hadlayo arrinta ku aadan dilkii loo geystay generaalkaasi. wadamo badan ayaana ka hadlay ay kamid tahay wadamada khaliijka inkastoo aysan si toos uga hadlin, balse Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa la aaminsan yahay inay arrintani soo dhaweeyeen isla markaasna xulafada dalka Mareykanka marka ay timaado dagaalka bariga dhexe. dowladda Mareykanka ayaana fulisay weeraro dhaawac xoogan gaarsiiyey Iiraan iyadoo hogaamiyihii ciidamada xulka ee Qudus uu ku dishay duqeyntaasi. waxaana ilaa hadda lagu falanqeynaya arrintaasi inay ka dhalan karto arrimo badan oo ku aadan dilkii loo geystay generaalkaas Iiraan. inkastoo ay ku hanjabtay inay aarsan doonto, haddana waxaa la aaminsan yahay in Iiraan aysan dagaal ku degdegi doonin oo ka dhan ah Mareykanka, maadaama xulafada Sacuudiga, Imaaraadka Carabta, Israa'iil iyo Mareykanka oo dhinaca aysan Iiraan la bartameynin, taasoo keenaysa in Iiraan ay hoos fiiriso markay timaado jawaab adag ay ka bixin karto dilkii loo geystay generaalkaasi. muddooyinka ugu dambeysay waxaa cadaadis xoogan ee saarnaa dalkaas Iiraan oo ay kamid tahay in madaxweyne Trump uu kusoo rogay cunuqabateyn dhanka siyaasadda iyo weliba dhaqaalaha ah oo ay ugu horeyso kordhashada saliidda ee dalkaasi Iiraan ayaana waxaa sidoo kale ay bartilmaameysatay maraakiib badan oo mureysay maranka Hormuz, kaasoo iskala gooshaan maraakiibta caalamiga ee isticmaalo. waxaana la aaminsan yahay haddii xiisadda ay soo ximaato in Iiraan ay beegsan karto maraakiibta maraysa marinkaasi, kuwaasoo intooda badan saliidda kasoo dhoofiyo gudaha dalalka Imaaraadka Carabta iyo weliba Sacuudiga, kuwaas oo mara marinkaasi. haddii Iiraan ay wejiga xumaanta ah ee la soo baxdo, waxaa la yiri waxa ay ugu dambeyntii xiri doontaa marinkaas, taasoo ka dhalan karto in wadamo badan oo caalamka kamid ah ay jawaab adag ka bixiyaan isla markaasna Iiraan oo xiriirka ugu xumaado wadamadaas, taasoo la sheegayo in Iiraan aysan ku fikiraynin qaab noocaas, balse ay ku fikirayso inay u aarsato qaab diblomaasiyadeed iyo weliba qaab kale, iyadoona fulinayso weeraro ka baxsan gudaha dalalkaas Iiraan kuna sameyn doonto meelo ka fog wadamada khaliijka. Iiraan ayaana la aaminsan yahay in arrimo badan oo Mareykanka ah ay weeqday dhawaanihii ugu dambeeyey, balse dilkii loo geystay generaalkan ayaa waxa uu weeqayaa awoodoodii ay ku lahaayeen gudaha dalkaasi Ciraaq. Mareykanka ayaana saacadihii hadda lasoo dhaafay ugu dambeeyey waxay ku dhawaaqeen in 3,000 oo askari oo dheeraada loo diray gudaha dalka Ciraaq, kuwaasoo taageero buuxda siin doona isla markaasna ka caawin doona 5,000 askari ku sugan gudaha dalkaas Ciraaq ammaankooda iyo weliba sidoo kale sidii loo ilaalin lahaa madaxda ku sugan gudaha dalkaas Ciraaq ee u dhashay dalka Mareykanka ay kamid tahay safaaradda ku taala magaalada Baghdad ee uu Mareykanku leeyahay. waxa uu sidoo kale uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump bartiisa Twitterka kusoo qoray in Iiraan looga baahan yahay inay difaacdo safaaradda ay ku leeyihiin Tehran ee caasimada dalkaas Iiraan. ay sheegeen in haddii la beegsado ay noqonayso arrinta mid diblomaasiyadeed oo toos ah, taasoo ka dhalan karta in labada dhinacba aysan dan ugu jirin. balse ilaa hadda TV-yada caalamiga iyo weliba wargeysyada caalamiga ayaa waxay qorayaan in dagaalkii saddexaad oo adduunku uu macquul yahay dilkii loo geystay Generaal Soleimani kadib. generaalkan ayaana waxaa la aaminsan yahay inuu ahaa maskaxdii uu isticmaali jireen Iiraan dalalka khaliijka, gaar ahaan wadamada Suuriya iyo weliba Ciraaq. waxaa ilaa hadda warar kala duwan ay kasoo baxayaan arrintaas, inkastoo dhanka baraha bulshada Soomaalida qaarkood ay arrintan si kala duwan uga kala hadleen oo ay kamid tahay in qaarkood ay soo dhaweeyeen dilka loo geystay, ay sheegeen inuu sarkaalkaasi ahaa mid loo adeegsan jiray isku dirka iyo weliba ka shaqeynta colaadda horinta wadamada islaamka ah, gaar ahaan sunniyiinta, halka qaarkoodna ay aaminsan yihiin ama ay kusoo qorayaan baraha bulshada in dilkii loo geystay generaalkaas uu ahaa mid weeqaya islaamka, islamarkaasna arrinta Iiraan iyo Mareykanka aysan noqonin ee noqon karto waa la yiri mid diiniyan ku salaysan. inkastoo arrintaas fikriyan aysan inta badan warbaahintu aysan soo hadal qaadanayn, haddana waxaa la aaminsan yahay dilkii loo geystay generaalkaasi inay soo keeni karto dagaal saddexaad oo ka dhaca dunida, taasoo u dhexeyso wadamada Iiraan iyo weliba Mareykanka. wixii warar kusoo kordha barnaamijyadeena dambe ayaana daawadaal si faahfaahsan uga bixin doona subaxnimada hore Brit. tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.